dalalka Djibouti iyo Ethiopia ayaa ku dhawaaqay iskaashi cusub oo ku aadan la dagaalanka kooxaha argagixisada ee ka jira gobolka. kulan gaar ah oo dhex maray wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Djibouti iyo Ethiopia Dr. Gadin iyo waliba sidoo kale dhigiisa dalka Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa labada dhinac si qoto dheer uga wada hadleen arrimaha la xiriira amniga, iskaashiga iyo waliba sidoo kale la dagaalanka kooxaha argagixisada ee ka mid tahay kooxda Al-Shabaab oo gobolka ka wada fal amni daro. Dr. Gadin wasiirka arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Ethiopia ayaa xuseen xiriirka Djibouti iyo Ethiopia uu yahay mid soo jireen ah oo ku saleysan iskaashi dhow, waxaana uu tilmaamay in Ethiopia ay si firfircoon uga shaqayn doonto nabadda iyo xasiloonida gobolka iyagoo diiradda saari doona xakamaynta falalka argagixisada ee ka dhaca gudaha gobolka iyo waliba sidoo kale dibadda. dhankiisa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa isna carabka ku adkeeyay in xiriirka saaxiibtinimo ee labada dal ka dhexeeya uu ku dhisan yahay wadajir iyo waliba sidoo kale qoys, waxaana uu sheegay in iskaashiga cusub uu xoojin doono la dagaalanka ka dhanka kooxaha argagixisada. labada dhinac waxay isla meel dhigeen qorshayaal lagu xoojinayo iskaashiga dhinacyada dhaqaalaha, ganacsiga, adeegyada dekedaha, kuwaas oo muhiim ah horumarinta gobolka oo dhan. tani waxay muujinaysaa tallaabo muhiim oo labada dal ay ku xoojinayaan arrimaha amniga, horumarka gobolka iyo geeska Afrika.